qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin gabadhiisa kasoo doontay amiirulmu'miniin, boqorka muslimiinta dhan xukumo. boqorkaas wuxuu usoo doonay wiilkiisa oo dhaxal sugaha ah hadduu duqa dhinta wiilkii boqorka noqon lahaa. laakiin aabbahaas ama ninkaas wuu diiday inuu u guuriyo gabadhiisa ninkaas. haddaba ninkaas yaa waaye? sababtuu gabadhiisa ugu diidayne waa maxay? فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يا المال ودوك جوتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية قصة حصة. ولا للقصة دي أنا ما قصة عادي، ما هو قصوين كل قرة حيستواي ومضان علماء هذه كتسيس قيمه لهايين. بداية القصة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، عبد الملك بن مروان وحوها بقر الدون كردن حكومة أيها أيا وحو قانصدي إنه صبحوا يماذو حجك السجى إفهم الكيسة إسسو راعين حجك إمادين مركي دميستين كدب وحي هذين مدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم روضي كتو كذي ورaaxaystay wuxuu go'aansaday xoogoo kale inuu soo jooso qalbigiisa u sii dego. maalmaha ka mid wuu seexday, hurda u imaan weysay, wuu soo kacay. ninkii xaariskiisa u yeeray wuxuu yidhi masaajidka tag ee waxaa iigu yeertaa nin caalim ah oo qalbiga ii dejiyo. ninkii wuxuu yidhi waa soo baxay, masaajidka nebigaa imaaday, dadaan fiiriyay, wax jooga male, hal nin oo 60 meeshaas ah oo aad u degan oo arday ag joogaana arkay. markuu meesha tagay fartu uu yiri wuxuu yiri kaxay sheekhu wuu fiiriyay, wuu ka aamusay. kadib wuu u yimid soo uma jeedid inaan ku yeerayo. markaasuu yiri maxaan kuu qabtaa? markaasuu yiri amiir almu'miniin cabdimalik ibn marwan ayaa hurdada kasoo kacay. qisadii uu sheegay wuxuu ugu yiri igu yeer nin. markaasuu yiri dadku raba aniga ma ihi. markaasuu wuxuu ku yiri wuxuu rabaa qof cilmi alxadiid وأقريو أيو ربا أدينا حديث شيء ويسا. مركزو وحوكو يري دتك بقرده أطاقو أشاكي أني قميئهي حدور ربا إنو وحدة جيستنا مساجد كوافورين هاي مالو فريستنا كما وينا يا أرضي داف. نينكي أسيقو إندها تاقاي وصوب حي عبد الملك بن مروان وإيمت أرنتيو أشاكي ننساس إساس أنصو أركي. عبد الملك بن مركي لو شيغي وو استاغي دركيسو قفتي. مركاسو ذاك والله سعيد بن المسيب. ننكاس وسعيد بن المسيب ليتك ما كلمته أذو لهدنا في عناذو رهي واسكبح قل كيسو قالي عنق أبو يرى كمد ويلش عبد الملك بن مروان أيا ولالكيس كالويدي وحويري يا واي نينكاس أمير المؤمنين ويري أو تبين إنه إمام ولالكيس وحوكيري نينكاس ونينكي آبها وقضوني ولالك وليد وقضوني وسوديدي ويلكيرا إنه إندها تاقو وحويري ما وحوديدي ولي العهد وقبلي سوديدي. مركاسو يرها مركاسو وحوكيري سبب ويلكو كأمس مكرناي. مركاسو وحوكيري هبو أديدي qof ka fiican ma u helay mise waa dadka odayaasha qaarkood oo gabdhahooda nimankana u diido oo guryaha ku haystaan ilaa ay ka duqoobaan. walaalkii wuxuu ku yiri walaalkiis wallahi qisadooda iyo sheekadooda kama warhaayo. nin marka meesha joogo reer Madiina ayaa wuxuu yiri anaa qisadiisa idin haayo haddaa ii ogolaataan inaan idin sheego. labadii waxay dhaheen noo sheeg waa rabnaaye. markaasuu wuxuu yiri أبو وداع نينك اللي راهو أو قبل سعيد بن مسيب قرصدي أنيجا لبدين قري وما دحي درسانا هاي السجان قصة إيشيجا إين شيجا مركز يدهن هاي النوشة. وحير أبو وداع وحان كمدها أرضي ذا الشيخ سعيد بن مسيب أسبوع عمل كل ودمانا إيمان تكيو وويدي هبل يا يقان المهم وواي خبر كيجا وواي ما المكذب أيام إماضي. markii xalaqada dhamaatay kadib ayuu ii yimid. markaas uu yiri maxaa kugu dhacay? markaas waxaan dhahay xaajiyadii iga dhimatay gurigan joogay. markaas wuxuu ugu yiri ma guursatay? markaas waxaan dhahay ya sheekh ya imaam nin sideedo kale oo naagna ka dhimato faqiir yaa wax siisanaya. markaas uu yiri idan ana gabadheeda ku siinaya. markaas aan yaabay u dhahay adiga imaamka markaas uu yiri ha ma aqbalaysa.
markaasaan yaaba heli karabo meeshii ugu nikaaxuu yidhi waa soo baxay gurigaa imaaduu dhahay anigoo wareersan meelan wax ka bilaabo garala gurigaygaa imid waa soonaayu yidhi muufa iyo saliida meeshii taala anigoo cunaya albaabka liigu soo gargaraacay maqribka kadib markaasaan dhahay yaa waaye markaasu wuxuu yidhi saciid wuxuu yidhi inta saciid aan aqaana dhan maskaxdayda waa soo geliyay waxaan saciid ibnu musayib ka ahayn laana saciid ibnu musayib 40 sano gurigiisa iyo masaajidkiisa meelaan ahayn ma aadan gurigiisa masaajidkiisa gurigiisa albaabkiyaan ka furay idaa huwa saciid ibnu musayib waa naxay markaasaan sheekhu maxaa u imaatay maxay soo ciisanaa ku imaan lahay markaasuu yidhi anigay ahayd inaan kuu imaado waxaan ka xishooday adigoo naag qabtid inaa naag la-aan aad joogtid xaaskaaga waa tane salaamu calaykum gadaalaan fiiri waxaa arku yidhi gabar maasha allah xijaaban hoos fiirinaysa xataa kor ay soo fiirinaynin anigii waa naxay xaajiga wuu sii baxuu yidhi gabadhi socod xishood kaliya dhulkay rabtay inay ku dhacdo buu yidhi marka waa gudahan soo geliyey waa soo hormaray muufadii iyo saliida meesha taalaan ka qaaday xaaji saciid waa iska baxay sheekh saciid wuu baxay aniga wuxuu yidhi koran fuuli waa qayliyey wardadow dirisow maxaa dhacay markaasaan waxaan dhahay yidhi saciid ibnu musayib ayaa gabadhiisa igu daray waxaan rabaa kaalaya la hadla usii diris lasii sheekeeya anigana hooyadeeyaan aadaa aan wax usoo qaada dhar iyo waxay xirate diriskii waxay u dhahen saciid ibnu musayiba gabadhiisa kugu daray markaasaan waxaan dhaho yidhi haa waa imaadeen gabadhii u sheekeynayeen waa baxay hooyadeeyaan u tegay waa soo kaxeeyay arrintii aan u sheegay hooyadii waa timid waxay uu tiri yidhi hooyadaa ma ihi haddii amarkayga maqal weysay gabadhan waxay tiri inaan kuusoo dhiso oon kuusoo aroos kaaga soo dhiga maahayna si kale gabadhan uguba dhawaanaysid bax 3 maalmood kadib aan ku dhisaa gabadhan gabar aroos in laga dhiga aroos u qalmay inaan u sameeyo gabadhan saciid ibnu musayib baa dhalay hooyadii waxaan dhahay haye 3 maalmood banaanka iska aaday gabadhii marka waa loo soo dhiso cilaan iyo waxaas loo soo sameeyay gabar aroosa laga dhigay sidii ayaan ku guursado yiri gabadhii maalmo kadib marka wuxuu yiri marka usbuuci laga baxay aan aabaha tagtiisina aad waa imaan jiray waa ka soo daahi jiray marmarka qaarkood xadiidku aabaheeda warinayo kulli waa taqaanaa iidan marmarka qaarkood macallin inoo wariyay yaas gabar ayaa ninkeeda macallin u noqotay markay wax barata waaye saciid ibn musayyib la weydiiyay maxaa gabadhaada ugu diiday ninkaas oo ninkan faqiirka ugu dartay markaasuu wuxuu ku yiri gabadhayda meeshii ku kortay waa taqaanaa haddii la geliyo qusuur bani umayya haddii la geliyo qasrigaas iyo villadaas hadday gasho intaa shaqaale ay u imaadaan gabadhayda diinteedan u baqay u dhahay wax kale ma aha gabadhayda diinteedan u baqay u dhahay ma ahan ninkaas inuu gabadhayda u qalmin ma ahan uu yiri gabadhayda inay ninkaas isu u qalmin ma ahan uu yiri laakiin gabadhayda diinteedan u baqay ninkan laakiin diinteeda uu ilaalina because waa isku level saciid ibn musayyib marka qisadiisa waa dheer tahay intaasaan ku koobaynay qisada marka waxaa rabnaa faa'iidooyinkeeda inaan ka qaadano faa'iidooyin badan ay leedahay qaar ka mid ah idin sheega inta kalena idinka idin diina insha Allah taala faa'iidada koobaad gabadhaada waa ammaano ilaahi wuxuu weli kaaga dhigay waxa waaye inaa u dooratid qofka wanaagsan hadduu kuu yimaado qof diin iyo akhlaaq leh u guuri saciid ibn musayyib hadda ninkaana u yimid diini akhlaaq ahaan ugu muusan diiday laakiin diini akhlaaq ahaan waxaa aga fiicnay ninkii kalo laana markuu ku yiri yaa ii guurinayo saciid ibn musayyib wuxuu ku yiri أنا كوغورناي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أنا جانا دين هذا إيه أخلاق هذا حاليا كأهي قبل إذا نكوغورنا حتى ديارته نيك سيدي أيو كوغور سدي فإذا ذا لبعض سويل كاغو أوغور هذه نيسيد قبل وناكسن gabadhaadana u raadiyo u fiiriyo wiil wanaagsan ceeb ma aha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Hafsa markii laga dhintay ee garoob noqotay niman u raadinay Abu Bakr u tagay Uthman u tagay Ali u tagay ila markii dambe nabiga uu guursay Umar muxuu sameeyay because gabadhiisa waaye inay asturnaato raba Saciid ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala markuu arkay gabartiisa ninkan diinta iyo akhlaaqda leh oo ardaydiisa kamid ah markuu gabar la'aan ku dhacday oo naag uusan haysanin gabadhiisana ay joogto wuxuu yiri gabadhaada ninka asturayo waa ninkan taas waayu ugu daray faa'iidada saddexaad muhiim jiddan waa gabdhaha u tahay waxaan ka faa'iideysanaynaa aabaha inuu gabadhiisa wilaayadeeda asiga haayo zamankan waxaa soo batay
gabadha waxay keensanaysaa ninaan la aqoonin waxaa laga yaabaa xataa inuu shalay soo islaamay in la aqoonina laga yaabaa aabihii markii uu keento wuu ku yiraaha gabadhayda iska hubi ninkan waxay leedahay no racista tahay cunsuriyaa tahay waxa ugu diidaysaa ajnabi waaye maya gabadhay isdeji saas ma ahan aabaha xaqa bixitaanka lagu bixinaya asigaa iskale hadduu arko ninkan inuusan ku qalmin wuu diidi karaa xaquu leeyahay waa weli macnaheeda waxa laga dhigay waxa waaye awoodeedu leeyahay gabadha guuritaankeeda laba wax waaye gabadha ninay rabina laguma dari karo xoog laguma dari karo weliga ninkuu rabine gabadha ma guursan karo taas macnaheeda ma ahan aabaha inuu gabadha guriga ku xiranayo oo dhahay nin guursanayo male ilaa lacag badan ii keeno maya ninka hadduu yimaado uu diido gabadha xaq waxay u leedahay aabaheeda inay qanciso hadduu diida aabaheeda ay ictiqaadsan tahay ninkan nin u dhigmo kufu hadduu yahay waa dacwoonaysaa culamadii u sheegaysaa qaraabadii u sheegay haddii la maqlo culamadii u sheegaysaa waa la dhexgala waa la dhageysana haddii la arko gabadha inay xaq leedahay ee ninkay keensatay nin diin iyo akhlaaq lala yahay aabahana sababo kale ugu diidayo xoolo ama waxaas ugu diidayo then markaas waxaa jirta wax xajr la yiraaho culumadana go-aankaas iskale habar meel joogto go-aankeeda ma qaadanayso ma dhehayso kale wuu ku diiday hay baxso guursa ma dhehayso maya culumada meesha joogtaa markaas fariisanayso go-aanka qaadanaysa ninkan gabadha wuxuu ku sameynaya mustaqbalkeeda burburinayo sidaa darteed waa ka qaadi wilaayada culumadaasa marka weli kuu noqonaysaasay ninka kugu daraayiin faa'iidada afaraad madaxweynayaashii ama boqoradii hore sidii culamada u is ixtiraami jireen cabdimalik ibni marwan adduunka dhana uu istaagi jiray qof kor u fiirin jiray xataa male markuu hadlaayo saciid ibni musayib oo masaajid joogo miskiin ahoo qof hadduu maanta xiro qof la hadlaayo jirin ayuu u jawaabi waayey marka inuu istaago wuxuu yidhi dalika saciid ibni musayib laytaka maa kallamta aduu la hadlanaa ficneed why because waxay yaqaaneen culimmada iyo qiimaheeda yaqaaneen culimmada markastay madaxweynayaasha ama boqorada ama mas-uuliyiinta culimmada ay ixtiraamaan ummadana waa ixtiraamaysaa ilaahayna wuu karaamayna lana culimmada waa awliyaa allahi waa dadka dhulka jooga man caadaa lii waliyan xadiid alqudsiga ahaa faqad aadantuhu bilxarb madaxweyne culimmada karaameynaya haddaa aragtan asigana waa la karaameynaa madaxweyne ihaanaysanaya haddaa aragtan asiga meel xuna u dambayso faa'iidada shanaad culimmada iyo haybadooda waaye ninka caalimka hadduu rabo inuu hayba yeeshto waa xaqa inuu sheego waaye haddaa aragtid nin caalim madaxweyne le daba ordaayo wuxuu madaxweyne dhaha haa sax waaye dhaha warqada u saxiixaayo ninkaas waa caalim sulta waaye حتى نينك مدحوينه أكتيس نينكاس قيمة كمالهانا هوس وفينا وحولي كانوا أسكنعنع واي لكن نينكي حق الشيء هارون الرشيد رحمه الله تعالى ويمان جري ماشي نقوي ما يكتجي جري عبد الملك بن وجد قالوا ماذا واي قانان بقرتويدا واي قانا أما مدحوينه ياش أما بقر هذا واي قانا نينك هيبذله نينكاس واي احترامه ninkay rabaan ay arkaan miskiin ninkaas dadka wajigeedii u dhigayeen laakiin waa ogyahay ninkaas inuusan qiimo lahayn mana qiimeynayeen faa'iidada lixaad talab cilmiga barakadu leeyahay iyo qiimuhu leeyahay ninkan hadda abu wadaaca waa nin faqiir ah wax ma haysto gabar loo diiday waliyil ahd boqor sugaha boqorka muslimiinta dhan xukumay gabar loo diiday ayaa asiga la siiyay inta kaliya meherkeeda dhan 2 diinaar laga dhigay gurigana loogu geeyay markii loo geeyay xataa wuxuu ma adaa keentay gabadhi inta aniga soo doon xataa adi ma keenay markaas uu yiri ha marka kaas waxay ku tusaysaa marka talab cilmiga la baranayo faa'iidadu leeyahay heybadu ku siinayo cilmigana waxa loo baahan yahay in lagu daro akhlaaq lagu daro iyo taqwa lagu daro hadaa cilmi baratid aadan akhlaaqna lahayn alla ka cabsina lahayn waxaa noqonaysaa kamathal alximaari yaxmilu asfaaran marka waxaa loo baahan yahay qofka طالب cilmiga inuu akhlaaq iyo taqwa ku darsado faa'iidada todobaad ee tan sideedaad iyo sagaalaad iyo tobanaad adiga laga rabaa marka ina soo qortid bakhiil ha noqonin ya jazaakum allahu khayran barakallahu fiikum dhageyso ka faa'iideyso walaalaha kale usii gudbi waa inuu jimcaha soo socota iyo qissa cusub salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله